السلام عليكم وصحبتي walaashina joogsheen muuqaalka cusub wadaan oo cusub subscribe kana galmaamin maanta waxaan wadaa donut aad iyo aad u macaan badan aad iyo aad u fudud qof walba uu sameeysan karo ramadaan na soo dhow ilaahna wadi caafimaad nagu gaarsiiyo casriya u sameeysan kartaa wax walba afurka baa u sameeysan kartaa casriya ka dhigan kartaa maasha Allah wax walba waxa fudud qof walba uu sameeysan karo guri walba wax gurigaaga yaalo oo banaanka u raadinaynin waaye waxa dhan maasha Allah marka asxaabi halka waxa ku haysanaa labo bakeeri oo bur ah qaada haafkeed oo faxisa ama khamiirisa ah ama leewita sida u taqaanid bakeeri haaf oo subag ah adeeda saliid jecesha oo isticmaali kartaa ama saliid ah haysato subaga jeclaan ariftiisa halkaas waxa ku haysanaa 3 qaado sokor ah hal galaas oo caano ah caano qandac ah caanaha la halka galaas dhameystiran xitaa ma wada isticmaali doono xira ka isticmaali doonaa marka insha Allah isla socod wanaagsan intaan rabno hadina isku qasno oo isdhexgelino saddexdeena qaado sokorta ahayd iyo burkeena isku soo darsanay sokorta iskuma badinayno hadda hadhooti baa raba macaan inaan gadaal ooga sameeyo marka sokorta hadda ku badiyo hadhoona macaan lagu cuni karo halka qaado leebatada ahayd iyo sokorteena isku dhexgelinayna hadda ukunteena ku soo darsanay haddana waxaan rabnaa inaan caanaha gadaal uga soo darno waad aragtaan galaaskeena caanaha kumaan wada darin haafira ka isticmaalnay ku darnay hadduu ka yar adkaadana gadaal uga dari doonaa ma ahan in hal mar ku wada shubno waxir isku soo dhaxmariyay kadib gacanta la galnay marka waa inaan si fiican u soo qasno si fiican u soo xashin u soo cajiino wax kasto cajiin ka sameynaysid waxa fiican inaad si fiican u xashto xashtaankeeda kaaday ku xiran tahay bur aad u fiican ugu dambeyn burkeena waan soo xashnay sidaas qurux badan oo noogu soo baxay waa dabooleena wax yar 40 daqiiqo camal ka maqnaanayna si uu noogu soo qamiiro maasha Allah burkeena waa kana noo soo qamiiray sidaas qurux badan oo noogu soo baxay haddana waxaan rabnaa inaan donut-keena sameeyno waxaan sameynaynaa burkeena laba qayb u soo kala jareynaa aan donut-ka ka sameynaynay hal mar ma wada isticmaali karno aad u weyn yahay marka laba qayb xitaa 3 qayb oo si kala qaybin doona laakiin hadda halkaas qayb isticmaaleena oo jarjareena halkan ku xashanayn miiska kushinka ku aan ku xashanayn nadiifiya anna waxa haystaa ku sameysan kartaa marka waxa soo qaatay geedkii burka lagu fidinayo soo qaatay hadda waan fidinaynaa kadib isku soo laaban doonaa waan fidinaynaa hadda si fiican afarta dhinacbo marka ma ahan in khafiif zaid ah ka dhigto culays inuu noqdo lama rabo aad iska dhexaad waxa dareemi karto gacanta marka ku sameynaysid inuu culays yahay inuu khafiif yahay marka si normal bas ala rabaa caadi inuu ugu dambeyn burkeena soo fidinay bakeeriga soo u jeedana ku cabiranayna donut-keena bakeeriga ku soo goonayna u jeedaan galaaska caadiga xitaa guri kasta yaalo ku sameyn kartaa bakeeriga guri kasta yaalo bakeeriga kafeega lagu cabo shaaha waa isticmaali kartaa geedka dhexda uga bixinayna waa furka jubadaha caadiga ah biyaha laga cabo caafiga iyo waxaas laga cabo waaye marka uma baahan in wax decoration soo gadid oo ku sameysid donut-kan maasha Allah wax walba guriga yaala sidaan ugu sameysan kartaa quruxdaas ayuu kugu soo baxaya waa kana donut-keena marka waxaan rabnaa laba qayb inaan u sameeyno oo laba nooc camal ka dhigno qayb waa tan dhexda ka soo dudulinay qaybta kalena waa arki doonaa
burkeeni saxankaana ku shubnay maxaa qaybtaas waa daboolina wax yar ilaa 10 daqiiqo waxaan rabnaa inuu noo soo qamiiro qaybta kale hadda soo fidinay ma rabin video inuu dheeraado saasa usoo jira markaa fidinaya muhiim ah inaan tuso qaybta hore arkaysiin marka hadda waa jareynaa qaybta labaad isla sidii bakeeriga baa ku jareynaa donutkeena hore sidaan usoo jarnaa haddana u jareynaa marka asxaabay donutkeena labada nooc u sameysanaynaa kii hore dhaxda ka soo dolinay laakiin kan sidana ku isticmaalaynaa soo sidana isticmaali doonaa isla saxankeena soo qaadanay marka waxaan rabnaa in saxankan soo dhexgelino kadib aad daboolno uu noo soo qamiiro 10 daqiiqo kadib u soo laabanayna wax yar markuu noo soo furo hadda saliideedu noo soo kululaatay dabkeena saaid ma dheereysna ma ahan dab aad u dheer inaa ku karsid dab medium oo dhexdhexaad inaa isticmaashidaan rabaa hadda dabku ka dheeraado hadhow burka kor iyo hoos uu ka soo kari doonaa gudaha hoosana ceyriin uu ka noqon doonaa dusha sare uu ka soo gudbanayaa marka si uu sidaas nooga noqon dabkeena waa dhexdhexaad aadna uma gaabno aadna uma dheero waxaan isticmaalaynaa qaybta dhexe aan isticmaalaynaa ما شاء الله وجدين سيدو نوgu soo gadgadutay qadad qurux badan oo dahabi noo soo noqday waa gadgadinayna dhinaca kalena sidoo sidaas oo kale noogu soo noqday dabkeena dab dhexdhexaad waaye dab aad u dheereysan ma ahan ما شاء الله donutkeena hadda inta kusoo wada gashubanay markaas qurux badan sidaas loogu soo baxay haddana waxaan rabnaa inaan macmacaankii donutka lagu cuni lahaa aan sameeyno halkan waxaa noogu jiro sokor shiidan sokor nooca shiidan noogu jirto supermarket walbo ku dhawaad lagu gadaa soo gadan kartaa ama haddii kale sokorta guriga ku taala shiidan kartaa oo isticmaali kartaa labadaba waa isku mid donutkeena labada nooc u sameeyay haddana inaan soo saarno saxanka donutkeena qaybta kalena waa kan inta ku soo diyaarsanay marka laba macmacaan kala gooniya u sameyn doonaa daarabtid waa isku darsan kartaa dusha sare sokorta shiidan uga yar daadsan kartaa laakiin ana ma sameynayno waxaan wax yar inaan saas soo dhex galino markii wax yar dusha sokor macmacaan nooga noqdo aan weelkeena ku ceshino dhinaca kale donutkeeni waxaan ku sameynaynaa macmacaan asagana shiidna gacanteena ku sameysanay dusha rabo inuu ku soo dhadhamaa ku daadsanaynaa hore sokor fiican oo uma darin wax yar ku daray marka maadaama hadda macmacaan aan rabno in dusha sare looga cuno innaba caadi maaha macmacaankeeni sidaas uu noogu diyaarsan yahay cadeeskaada iyo donutkaaga ku casriyeyso waaye casriye fudud qof walba uu sameyn kara aad iyo aad u fudud maasha Allah innaba caadiyan wax waqti ah kaaga bixi insha Allah soo tijaabiye idinkana sidan u soo sameysto waa mahadin doontaan